calanka Somaliland tawxiidka ku yaala haddana waxa ku yaala calaamadii shaydaanka lagu sii daray oo ah pentagramka waxa la yiraahdo isagu waa dood gooni maxaa loo jeedaa calaamada shaydaanka wal pentagramka ama shangeeska waxa la yiraahdo dadka Soomaaliyeed waxay digto u yaqaanaan waxay ka turjuntaa afar diinood oo kale ka turjuntaa Wiccas Kabbalah New Paganism Satanism diinta shaydaanka lagu caabudo mid la yiraahdo Wicca oo sixirka Kabbalah oo sixirka iyo paganism oo dadka cawaanta wax looga yaqaan fasiraad aad saarta Sufyaan fasiraad anigu aan saarmaha waa wax banaanka yaalo qof kasto star inay afarta diimood ka turjumayso intee ku qoranta well hadii ay macnaha qof kastaan ku yiri oo bini aadan oo awood u leh inuu wax baaro oo hadda baaritaan sameey kara marka ugu horeysa geliso waxay ka turjuntaa afarta diinood ku soo baxaysa waxa kale oo cadeynaya laga bilaabo 1325 ilaa 1678 waxay calaamad ku jirta diinta Kirishtaanka ayaguna markii ogaadeen in loo isticmaalo diimahaas iska saareen Pope Clement the third ka bixiyay diinta Kirishtaanka calaamad noqotay markii hore waxay ka turjumaysay shanta dhaawac ee loo geystay Nabi Ciise sida loogu sheegay oo ahayd labada gacmood labada lugood iyo feerta now calaamadaasi ma aha wax qarsoon maanta caalamka qaabkay ku soo bilaabatay taariikhdeedii xisbigu marar badan ka hadalnay waana wax waadix oo banaanka yaala calanka Soomaaliland ma ahayn ujeedada hadda aan ka doodayno waxaan difaacaynaa maadaama diinteenii lagu xadgudbay